بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا وناكسان إذا لهانتين بداوض يال كسور دواذا ورarkeena qodobadaad ku maqli daawan doontaan waxa kamida TPLF oo deegaamo hor la qabsatay soona bandhigtay hub culus oo ay ka furteen xogaga dawladda dhexe waxaynu eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay dagaalada ka socda waqooyiga dalka Itoobiya iyo meelaha la kala marayo maxay tahay sababta xisbiyada mucaaradka ee deegaanka Soomaalidu ay uga hadheen doorashooyinkii la filayay soddonka bishani ay ka dhacda deegaanka Soomaalida madaxweynaha Mareykanka oo sheegay inaysan aqbali doonin isirbeegsiga qowmiyadaha gaarka ah ee ka socda Itoobiya iyo Yemen ugu dambeyntiina waxaynu eegi doonaa maxay maxkamadda ciidamadu u dhaqaajin laadahay kiiska Ikraan Tahliil intaasi waa qodobadan idin hayna daawadayaal kuwa ugu doorka roon haatan ku soo dhawaada isagii oo faahfaahsan aan ku bilowna xogaga TPLF ayaa guulo waaweyn ka sheegtay dagaaladii ugu dambeeyay ee maalmihii la soo dhaafay ka soconayay gobolka Amxaarada ee waqooyiga dalkaasi Itoobiya halkaasi oo colaadaha la keeyeen muddooyinkii ugu dambeeyay ciidamada Tigreega ayaa sheegay inay la wareegeen aaga lagu magacaabo Ibnet iyo sidoo kale deegaanka lagu magacaabo Gawadha dagaal adag oo maalmihii ugu dambeeyay ka soconayay aagaasi ay xogaga Tigreeg u sheegeen inay gacanta ku dhigeen magaalada Ibnet ee ka tirsan koonfurta gobolkaasi Gondar magaaladani istiraatiijiga ee Ibnet waxay 181 kiiloomitir oo kaliya u jirtaa magaalada Bahardar ee deegaankaasi Amxaarada dagaal adag oo labada dhinacba ay jilbaha isu aasteen maalmihii ugu dambeeyay ayaa ka soconayay dhowr jiho kuwaasi oo muddo dheer lagu dagaalamayay dhul aad isugu dhow waxaana muuqanaysa in dhinaca TPLF ay guula ka gaadhay furimaha qaar halka meelihii kalena weli la isku horfadhiyo oo dhinacyadu ay ku dirirayaan TPLF ayaa soo bandhigtay hub culus oo ay ka furteen xogaga dawladda waxayna soo bandhigeen hub casri ah oo ay dhawaan dawladda dhexe ee dalka Itoobiya ay ka keensatay dalka dibadiisa maamulka deegaanka Amxaarada iyo dawladda dhexe ayaan weli ka hadlin guusha ay sheeganayaan xogaga Tigreegu laakiin marka la eego sawirada iyo muuqaalada ay TPLF soo bandhigtay waxa markhaati madoona inay hub culus ka furteen dawladda isla markaasina ay furimaha qaar horumar ka sameeyeen ciidamada TPLF ayaa sheegay in dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay gobolka Amxaarada ay ku qabteen askar badan oo ka tirsan ciidamada dawladda kuwaasi oo ku sugnaa furimaha koonfurta Gondar iyo sidoo kale dhinaca koonfureed ee Wollo waa sida hadalka u dhigeen dagaalada oo si cuslaaday ayaa si badanaya khasaaraha ka dhashay colaadahaasi ayaana ah mid aan tiro lahayn dagaaladu haatan waxay ka socdaan nawaaxiga Debrecen iyo sidoo kale deegaanada ku hareeraysan waana dagaalada ugu adag ee labada dhinac ay isaga hor imanayaan haatan dhinaca koonfurta Wollo waxay ka socdaan haaraha ciidamada dawladda ayaana aagaasi sheeganaya inay guula ka gaadheen walow xogaga TPLF ay guula iyaguna ka sheeganayaan dhinaca Addis Ababa hadii aynu eegnana guddiga doorashooyinka ee dalka Itoobiya ayaa sheegay in lagu guda jiro wajigii ugu dambeeyay ee qabanqaabada doorashada bishani soddonkeeda ka dhacaysa goobihii hadhay ee guud ahaanba dalka Itoobiya maamulka Soomaalida Hararida iyo meelo aan lagu codeynin 21 Juun ayaa kamida goobahaasi oo dib looga bilaabi doono doorashooyinkii qaran ee Itoobiya ilaa 22 xisbi ayaa u tartamaya 47 kursi oo baarlamaanka heer federaal iyo tiro kuraasta deegaanada ah balse xisbiyada mucaaradka ee dawlad deegaanka Soomaalida ayaa gebi ahaanba qaadacay doorashadaasi iyagoo sheegay in weli ay tabanayaan tuhuna ay horay u qabeen oo aan si haboon loo xalinin Ibrahim Maxamed Xuseen waa gudoomiye ku-xigeenka xisbiga cadaaladda iyo sinaanta ee dawlad deegaanka Soomaalida waxa uu BBC uga waramay waxa ay saluugsan yihiin iyo sida ay yeeli doonaan
guddiga doorashada madax bannaan ee heer qaran ee Ethiopia ayay hoos timaadaa doorashooyinka Ethiopia hadday yihiin heer deegaan iyo hadday yihiin heer federaalba. Guddigaas saddexdii bilood ee u dambeysay waxaana dhex marahayay annagoo ah axsaabta mucaaradka deegaanka Soomaalida iyo iyaga hawl ku saabsan doorashada deegaanka Soomaalida oo waqtigii la diiwaangelinayay codbixiyayaasha la boobay kaararkii dadka lagu diiwaangelinayay oo gacanta u gashay xisbigii meesha ka talinayay PP ayna ka baxday gacantii guddiga doorashada ee dhexdhexaadka ahayd. Hawshaas baaris bay u direen way nala qaateen inuu qaladkaasi dhacay. Muddo badan baan sugaynay jawaabtii marka laga qaadan lahaa. Jawaabtii aan filaynay inay dhahaan kaararkii maadaama gacanta ka baxeen waa in la kansalaa oo kaarar hor la dabciyo dadkii loo qaybiyo. Nasiib darradii waxay noqotay in wax aad u yar oo marinaya xataa 20% inayna dhanayn wixii laga cabanayay yay dhaheen meelahaasna waa la kansali inta badanna sideedii baa lagu dayni. Haddaan marka axsaabta mucaaradka go'aankaas noo cuntami waayey marka waxaan idhi mar haddii kaararkii ay gacantii guddiga dhexdhexaadka ka baxeen deegaanka oo dhan aan aaminsanahay inuu isku mid yahay annagu doorashada ma gelayno saasaan ku qaadacnay. Arrintaas kaararka aad ka dhawaajisay miyaysan ahayn mid laga tanaasuli karo si aad idinkana doorashada uga qayb gashaan arrimaha doorashadana aysan carqalad iyo dib u dhac ugu imaanin? tanaasuli karo qofka aad la tartamayso xildhibaan baa tahay xildhibaan kale ka soo horjeeda tartamaysa ama waxa tahay murashax kale ka soo horjeeda murashaxa waxa gacanta ugu jira oo shacabka gacantiisiiba gelin kaararkii isagu ku soo bixi lahaa. Tusaale ahaan 1000 kaar hadduu ahaa almost 900 kaar buu haystaa 100 kaar baa laga yaabaa dadweynaha adiga ku codayn lahaa inuu gacantooda galay. Hadhow marka doorashada la gaaro 900 buu sanduuqa ku ridanayaa kadibna saasuu ku isku xidhaya marka already qofka waa dooran yahay qof dooran marka maxaa kala tartamaysaa maxaa laga tanaasuli karaa? Xisbiga talada haya waxa uu idinku eedeynayaa in aad markii horeba iidan diyaar u ahayn doorashada oo aad carqaladaynaysaan hanaanka doorashada. Arrinta maxaad ka leedahay? Waxaan leeyahay qofka wax boobaya wax carqaladaynaya iyadoo doorashadii la gaarin oo 3 bilood ka laaban tahay oo codbixiyayaashii la diiwaangelinayo qofka wax boobaya qofkaas baa kalsooni darra ka muuqata anagu waxaan sheegaynaa waxaan inuu kaliya sheegayna ma guddigii doorashada intuu baaris diray nala qaatay oo yiri qaladaadka way dhaceen marka taanadu makhraati bay leedahay in aanan ka cararsanayn doorashada waliba markaan ka baxayna waxaan nidhi hadii la xalliyo oo kaararkaas la kansalo doorashada waan galaynaa. Maxaa haatan idin xiga oo tallaabo ah oo aad qaadaysaan? Anagu marka koobaad waxaan nahay cod shacabka matala xaqiisana u soo dhiciya ama mowqifka qaadanayna waxa weeye damiirkanagiina waan raali gelinay shacabkanagiina waan raali gelinay oo wixii qaladka aan farta ugu fiiqnay nimankii wax boobayna waxaan ku nidhi waxba aad boobteen oo wixii waa qaldan yahay. Wixii inta ka soo haray waxa weeye shacabkanagii inaan la wadaagno oo shirar qabanno oo nidhaahna saasa boobkii u dhacay saasana go'aanka u qaadanay laakiin mar walba waxaan ka simanahay annaga iyo shacabkuba Ethiopia oo iyadiiba wareersan oo khalkhal badan ka dhex jiro in aanan gobolkanaga wax khalkhala oo dib u keena aanan marnaba la samaynin doorashada darteed marnaba inaan loo gelinin taas weeye mowqifka axsaabta ee mucaaradka ee qaadacay doorashada. Waayahay haatan sida muuqata doorashadii waad ka harteen marka maxaa qorshe ah oo haysaan oo ku aadan 5 sano ee soo socota? Dabcan laba balaan baan leenahay xisbi walba balaan u gooni ah oo 5 sano inuu isa soo dhisa ah iyo balaan naga wada dhaxeeya oo ah dadkanaga inaan wacyi gelin waxaa noo muuqata shacabka iyagu muddo dheer baa madaxa looga taagnaa ilaa in badan oo hadda kamid ayna garanayninba waxa laga dhacay in codkoodii la boobay xataa maynan aragba cod ay leeyihiin iyo cod qiimaha uu ku fadhiyo marka waxaan wadnaa wacyigelin mustawa shacabka labo shirweyne ummadda Soomaaliyeed dibad iyo gudaba ee deegaanka degta la isugu yeero qurba joogtoodii iyo kuwii wadanka sii joogay included kuwan dawladda wax boobay iyo xisbiga meesha ka talinaya in la soo saaro qaraar ummad Soomaaliyeed qowmiyad ahaan hadda dhaqanka meesha ka jira waxa weeye hab xisbi ahzaab baa loo dhaqmayaa xisbigu habka inaan ka gudubno hab qowmiyad u gudubnaan wadnaa hadda deegaanka amxaarada madaxweynahooda matala mucaarad iyo maxaafidba qowmiyad ahaan bay aragti u yeesheen Tigreegu waa saas oo kale Cafartu waa saas oo kale annagu marka inaan noqono qowmiyad Ethiopia marka la joogo hab qowmiyad wuxuu raadsata dhaxdooda wax u dhaxeeyana si hoose u xalista. madaxweynaha Mareykanka John Biden waxa uu khudbadii ugu horeysay ka horjeediyay golaha loo dhan yahay qaramada midoobay kaasoo uu ku soo qaatay tacadiyo uu sheegay inay ka dhaceen waqooyiga Ethiopia
waxa uu yidhi kama quusan karo joojinta dagaalada sokeeye ee ka socda Itoobiya iyo Yemen kuwaasi oo sababay macaluul xadgudubyo gaboodfalyo ka dhana xuquuqda insaanka iyadoo shacabka loo geysanayo kufsi si joogto ah loogu isticmaalayay hub lagu dagaalamo waxaan dhaleecaynaynaa beegsiga dadka laga tirada badan yahay ee lagu beegsanayo qowmiyadahooda diintooda ha joogeen gobolka Shiinaha ee muslimiintu ay degan yihiin ama waqooyiga dalka Itoobiya ayuu yidhi madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden. Itoobiya ayaa wadanka kaliya ee laba jeer u tusaale u soo qaatay madaxweynaha Mareykanku waxaana halkaasi ka cad in Itoobiya ay tahay dalka koobaad ee miiska u saaran madaxweyne Biden inuu wax ka qabto xasaradaha ka taagan. ugu dambeyntiina daawadayaal maxay tahay sababta aysan maxkamadda ciidamadu u dhaqaajinin kiiska Ikraan Tahliil? siyaasiga caanka ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo qoraal ka soo saaray xaaladda cakiran ee dalka ayaa si gaar ah uga hadlay arrimaha ku gadaaman kiiska Ikraan Tahliil Faarax ee ka taagan magaalada Muqdisho. ugu horeyntii Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa su'aal ka keenay sababta ilaa iyo haatan tallaabo ay u qaadi laadahay maxkamadda ciidamada oo loo gudbiyay kiiska Ikraan. maxay maxkamadda iyo xeer ilaalinta ciidanku u dhaqaajin laayihiin kiiska dacwadda Ikraan Tahliil? ma baaritaankii ayaa laga hor istaagay? ma wada hadallada siyaasadeed ayay ka warsugayaan? ma cabsi ayay qabaan? ayuu qoraalkiisa ku yidhi siyaasiga caanka Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. sidoo kale waxa uu tilmaamay in xeer ilaalinta maxkamadda ee ciidamada qalabka sida looga baahan yahay inay iska wareejiyaan tuhunka haatan laga qabo isagoo sidoo kalena dalbaday inay cadeeyaan waxa ka hortaagan inay guddigani guda galaan kiiska Ikraan Tahliil. waa inay tuhunka iska wareejiyaan oo ay shacabka u cadeeyaan waxay ka hortaagan guddiga galka kiiska dacwadda ayuu mar kale yidhi musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo ilaa iyo haatan aysan wax tallaabo oo muuqato qaadin maxkamadda ciidamada oo ay mar hore qoyska Ikraan Tahliil Faarax u gudbiyeen dacwad ka dhana saraakiisha sarsare ee ka tirsan hay'adda nabad sugidda ee Soomaaliya. guud ahaan daawadayaal intaasi ayaan kusoo gabagabaynaynaa wararkeennii ku mahadsan idin la socodkiina.